si aanba qaadna halkii ay noo maraysay geedi socodkii nabadda Soomaaliyeed aniguna waliba barqiye dhegeystayaal iyo daawadayaalba intii u dhaxaysay bishii Noofambar 1996 ilaa bishii Janaayo 1997 waxaa magaalada soo dare ee dalka Itoobiya lagu qabtay shir dib u heshiisiineed oo kale waxaa shirkaas lagu sameeyay golihii badbaada qaran ee la magac baxay NSC oo ka koobnaa 41 xubnood haddaba mas'uuliyiintaas ayaa loo xilsaaray sidii ay u soo abaabuli lahaayeen dawlad ku meel gaar ah ama KMJ hase yeeshee waxaa shirkaas qaadacay Xuseen Faarax Caydiid oo markaas hogaaminayay kooxdii aabihiis kadib geeridii Generaal Caydiid Allah u naxariistay waxaa kale oo la qabtay shir la mid ah shirkii Itoobiya ka socday waqtiga waxaana lagu qabtay magaalada Sanca ee dalka Yaban shirka waxaan ka soo qayb galin dhammaan qaybihii ku lugta lahaa dhibaatadii ka jirtay Soomaaliya haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaas waxaa ku qacan sayray qaybihii aan ka soo qayb galin ama aan ka soo xaadirin shirkaasi mar kale magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa lagu qabtay shirkii toddobaad ee dib u heshiisiineed bishii Disembar 1997 waxaana heshiiskaas saxeexay 28 xubnood iyadoo xubnihii saxeexay heshiiskaas ay ka mid ahaayeen Cali Mahdi iyo Xuseen Faarax Caydiid haddaba bayaankii Qaahira waxaa lagu dhisay gole ka koobnaa 13 xubnood oo ay ku jireen madaxtinimada iyo ra'iisul wasaare iyo baarlamaan balse waxaa la isku fahmi waayay ama la isku waafaqi waayay in dalka loo sameeyo hal madaxweyne oo qura la soco qaybaha dambe oo aan soo dayn doono haddii eebbe idmo insha Allah